fogee derbiga 20 feet iyo wixii ka badan kadib waxa kuu suurtagelaysaa in kaamarada aad u gudubto kadibna muuqaalkan aad hesho talaabada labaad ee qaadayso waa in aad kaamaradaada aad ka dhigto manual mode si gaar ah waxaan la hadlayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee isticmaasha kaamarooyinka loo yaqaan DSLR hadba talaabada labaad aad qaadaysaa waa hadba lenska aad haysato iyo aperture-ka lenskaagu inta uu furmayo lensyada waxay u kala baxaan prime lens iyo zoom lens waxaanu ku horeynaynaa prime lenska oo ah lensyada ugu fiican markii la sameynayo muuqaalada xagga dambe la dilayo markaayada anu hadda waxaan isticmaalayay waa 50 mm oo aperture-kiisu uu yahay 1.8 lenskan runtii waa lenska ugu mudan uguna jaban haddii aad awoodo ilaa $120 ayaa lagu gadaa had iyo jeer boorsada ku jiro marka muuqaalada aad sameynayso waa lenska ugu fiican ee aad ku sameyn karto waayo ishu waxay furmaysaa 1.8 ama 1.8 oo aad helayso iftiinka aad u baahan tahay oo dhan haddaba muuqaalada noocan oo kala ama lenska inta ishu ay furmayso waxay ka dhigan tahay indhaha bini'aadamka haddii hadda okiyaalahan oo kale aan si dhow u eego waxa suurtagal ah dhammaan wixii ka dambeeya oo dhan in ay noqonayaan blurry background haddii aan si toos ah u wada eego dhammaan okiyaalahan iyo waxa ka dambeeyana waxaad arkaysaa high f stop inay tahay marka had iyo jeer waxaad ku fikirtaa low f stop ama in aperture-kaaga meesha ugu hooseysa aad furto waxaad helaysaa muuqaalka noocan oo kala haddii aad doonayso inaad dhammaan muujiso oo ay muhiim ku tahay muuqaalada ka dambeeya oo dhanna waxaad sameynaysaa high f stop oo ah in aperture-kaaga aad kor u qaado runtii marka ay noqoto in aperture-ka isha aad furtay waxa kale oo soo raaca waa shutter speed-ku wuu ku kala duwan yahay markii sawir aad qaadayso iyo marka muuqaal aad sameynayso marka muuqaal aan sameynayna iminka waxaan isticmaalaynaa 24 frame per second waan laba jibaarina marka shutter speed-ka waxaan geenaynaa 50 haddii 30 frame per second aad isticmaalaysana waxaad geenaysaa 60 laakiin marka sawirka aad qaadayso way ka duwan tahay intii la doono ayaad kor u socon kartaa shutter speed-ka casharo kale ayaynu ku soo qaadan doonaa haddii iftiinku uu kugu bato oo maalinimo ay tahay maadaama shutter speed-kiina uu yahay 50 ishiina aad wada furtay lenska ama aperture-ka aad wada furtay waxaad isticmaalaysaa ND filter oo iyadoo ah natural density filter wuxuu kaa yareynaya iftiinka kadibna waxaad helaysaa shallow depth field aragtida kaamarada waa ay soo koomaysaa waxaanu ku soo koomaysaa hadba shayga aad duubayso haddaba zoom lensku waa lensyada dhaadheer ee fogaanta fog wax ka duuba waxaana inta badan loo isticmaalaa markii xayawaanaadka aad duubayso kale waxaad kaloo isticmaali kartaa marka sportska aad duubayso kale haddii aad haysato haddaba zoom lens kan waa 105 mm laakiin waxaa jiri kara 70 ilaa 200 iyo weliba ka sii fogba waad samayn kartaa muuqaalka blurry background-ka ama muuqaalka dambe waad ku samayn kartaa zoom lenskaaga haddii aad raacdo talaabooyinkan soo socda inta koobaad kaamarada markii zoom lensku uu kugu xiran yahay waa inaad ka fogaato ilaa 8 feet waa markay kugu dhowdahay waa inaad ka fogaato ilaa 8 feet kadib waxaad furaysaa aperture-ka zoom-kaaga hadba inta uu furmayo hadda kaygani waa f stop-kiisu waa 4 laakiin waxaa suurtagal ah inaad haysato 1.8 waa wada furaysaa fogaanta kaamaradana waxaad u jirsanaysaa 8 feet kadibna waxaad leedahay zoom in waxa ku raacona focuskiina ka saarto saas ayaad ku haysataa muuqaalka dambe oo ah blurriga haddaba waa suurtagal muuqaalkan intuu socday in macluumaad badan aan kula wadaagay fadlan dhowr jeer daawo si aad macluumaad aad uga hesho haddii aan wax ka tagay ama aad u baahan tahay in wax badan lagu iftiimiyana fadlan hoos loogu reeb wixii fariina la soco muuqaalka xiga oo aan ku soo eegi doono hadba xirfadda aan isleenahay way anfici kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee iyagu ku mashquulsan muuqaal samaynta